Fadlan haddii aad ku cusub tahay ha mogaanin inaad subscribe tidhaahdid channelka Farshaxan Media oo aad noo muujisid taageeradaada. Daawadayaal ku soo dhawaada qormo xiiso leh oo ku saabsan laba madaxweyne oo saameyn weyn dunida ku leh. Labadan madaxweyne oo saameynta ugu ballaaran ku kala leh wadamada Islaamka iyo gaalada, inkastoo uu mid ka mid ah labadan madaxweyne uu saameyn ballaaran ku leeyahay dunida Muslimka iyo dunida kaleba. Madaxweynaha koowaad waa madaxweynaha Donald Trump. Donald Trump waa madaxweynaha dalka Mareykanka. Donald Trump wuxuu ku dhashay magaalada New York taariikhdu markii ay ahayd 1946. Waa madaxweynihii 45aad. Wuxuu shahaadada dhaqaalaha ka qaatay Wharton School ee jaamacadda Pennsylvania. Aabihii oo ahaa hantiile weyn ayaa waxa uu hantida aabihii kala wareegay sanadii 1971 markaas oo uu bilaabay ka shaqaynta dhaqaalaha shirkaddii uu aabihii uga tegay. Waxa uu ganacsiga ka gaadhay heer fiican ilaa uu ka qoray buugga la yidhaahdo The Art of Deal ama Farshaxankii Heshiiska Ganacsiga. Waa buug ka caan baxay dunida oo beriyo ka mid ahaa buugaagta ugu horeeya caalamka. Trump waxay hooyadii ka soo jeedaa jasiiradda Lewis ee dalka Scotland. Aabihiina waa Mareykan. Trump wuxuu dhalay 5 carruur ah oo ay u kala dhaleen 3 dumar ah, waxaana awow u yahay 9 carruur ah. Trump wuxuu galay tartankii madaxweynenimada ee Mareykanka sanadkii 2016 waana ku guuleystay, waxaana ku soo baxay codad la yaab leh. Doorashadiisii oo in badan dunidu ka qaylisay ayaa waxaa Ruushka lagu eedeeyay inuu faragelin ku sameeyay doorashadii dalka Mareykanka, gaar ahaan sirdoonka Ruushku inuu faragelin siyaasadeed ku soo sameeyay doorashadii dalka Mareykanka isagoo khalkhaliyay serfaradii ay ku shaqeynayeen komishanka doorashooyinka ee dalka Mareykanka. Trump wuxuu saameyn ballaaran ku leeyahay guud ahaanba dunida. Trump wuxuu la soo baxay siyaasado cusub oo laba af leh. Siyaasadahaas oo ay ka mid tahay inuu ka soo horjeedo dadka soo galeetiga oo ay Soomaalidu lambar kow ka tahay. Trump wuxuu caddeeyay nacaybka iyo ciilka uu qabo dadka Muslimiinta ah. Taasina waxaa ku cadeynaysa isagoo caasimadda dalka Israa'iil u raray magaalada Gaza ee dalka Falastiin, halkaas oo uu safaaradiisiina geeyay. Wadamo badan oo Muslimiina ayaa ka aamusay halka wadamo gaali ay ka diideen. Dhacdooyinka ugu waaweyn ee Trump lagu xasuusan doono waxaa ka mid ah inuu Sacuudiga ka qaaday baad lacageed oo bilaayiin dollar ah isagoo ugu soo gabanaya waxaad soo maleegteen ama ku eedeeyay inay soo maleegeen qaraxyadii Twin Towers ee 2001 ka dhacay dalkaasi Mareykanka. Waxaa kale oo lagu xasuusan doonaa sida badheedh kale ee uu ugu hiiliyay Israa'iil. Awalba Mareykanku Israa'iil waa uu hiilin jiray, laakiin waxa uu si badheedh cad u ag istaagay Israa'iil isagoo Falastiin ku tilmaamay waddan aan jirin iyo qaxoontiis ka qulqulaya. Waayahay shakhsiyadeena labaad waa madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Waa madaxweynihii 12aad ee dalka Turkiga. Erdogan wuxuu dhashay 1954. Taas micnaheedu waxa weeyaan wuxuu 8 sano ka yar yahay madaxweyne Donald Trump. Wuxuu yaraantiisii ku soo koray magaalada Reesa ee xeebta Badda Madow ee dalka Turkiga. Waxbarashadiisii wuxuu ku dhamaystay dugsiga diinta ee la yiraahdo Imam Khatib. Kadibna jaamacadda Marmara ayaa uu ka bartay culumta dhaqaalaha. Waxa uu dhalay 4 carruur ah. Siyaasadda wuxuu soo galay 1980 laakiin hakad ku yimid siyaasaddii iyo nidaamkii xisbiyada ee dalka Turkiga. Kadib markii la inqilaabay madaxweynihii waqtigaasi ayaa ololihii siyaasaddiisa uu hakad galay. Wuxuu ku soo noqday sagaashameeyadii oo uu ku guuleystay tartankii badhasaabka gobolka Istanbul. 1998 ayaa lagu xidhay magaalada Istanbul isagoo lagu eedeeyay inuu dad kicinayay. Waxaana lagu xukumay 4 bilood. 4 bilood kadib ayuu haddana soo laba kacleyn sameeyay 2002 ilaa 2010 oo siyaasad xoog leh kusoo dhex jiray
kadib markii uu 2014 ku guuleystay kursiga madaxtinimada dalka Turkiga. Recep Tayyip Erdogan waa madaxweynaha ugu saameynta badan dunida muslimiinta ee hadda loo yaqaan khaliifka muslimiinta ama amiirul mu'miniin. Wuxuu siyaasad cad ka yeeshay Falastiiniinta ay Israa'iil ku dulmayso dalkaasi Falastiin. Waxa aanu sheegay in ay gardarro badheyn cad Israa'iil ku hayso Falastiiniinta oo ay dhulkoodii xoog ku qabsanayso oo Mareykanka iyo reer galbeedkuna ugu hiilinayaan. intaas oo ay ku dhici kari waayeen wadamo ka awood badan kana dhaqaalo badan oo muslimiina. Recep Tayyip wuxuu ka hadlay sanadkii 2017 dabayaaqadiisii xasuuqii lagu hayay dadka Rohingya ee dalkaasi Burma ama Myanmar. waxa aanu si adag ugu dhaleelay reer galbeedka inay iska daawanayaan xasuuqyada halkaasi ka socda. guud ahaanba dadka muslimiintu waa ay jecel yihiin oo ay taageeraan geesinimada Recep Tayyip Erdogan. guud ahaanba intaasi waxaan ku koobaynaa qormadeennii laba madaxweyne oo aynu ku soo qaadanay labada madaxweyne ee kala ah madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan. fadlan haddii aad ku cusub tahay ha mogaanin inaad subscribe tirahdid channelkeena Farshaxan Media si aad noola socotid oo aad u heshid mar kasta warbixinada iyo wararka aanu soo dhigno Farshaxan Media.